baxdiisu tahay khayraadka ka buuxa iyo siday nabadu bileen balarag bilicdiya dhismaha intay baxdiisu tahay khayraadka ka buuxa iyo siday nabadu bileen balarag bal arag bida iyo mudug بعد وين إيوه قلدقوم بلدك قال كعاية إيوه بريقة حولها كلهم بالأراك بالأراك إذا إيا مذوب بعد وين إيوه قلدقوم بلدك قال كعاية إيوه بريقة حولها كلهم بالأراك magacaygu waa injineer Ismaaciil maanta oo ay taariikhdu tahay 12 bishii koobaad 2021 waxaan ku sugannahay gudaha dekedda Garacad waxaan rabnaa inaan la wadaagno warbixin cusub oo ku saabsan shaqada dekedda horay waxaad ula socoteen meelaha ay wax marayaan laakiin maanta waxaan rabnaa inaan idin la wadaagno macluumaad cusub waxaan bilownay maanta dhigidii shubka antiferka ama hirjabiyaha ahaa shubkaas oo qaybtiisa hore miisaan ahaan 9 tan ah qaybta dhexana 12 tan qaybaha dambana 15 noqonaya maanta waxaan ku bilownay qaybta hore ee 9 tan ah qaybtan shub dhigida waxa ku howlan shaqaale isugu jira injineero surveyors quusayaal ama professional divers iyo crane operators khibrad fiican u leh shaqadan crane-ka shubka dhigaya operatorkiisa quusayaasha biyaha dhexdooda ku jira surveyorska banaanka jooga iyo teamka control roomka jooga toos bay wada hadlayaan waxaana u rakiban system ay ku wada xiriirayaan qaabka loo dhigayo waxa lagu hagayaa dhigida shubka GPS mid ku rakiban crane-ka ama wishka iyo total station dekedda ku rakiban si shubka sameeyo loogu talagalay loo dhigo intii la rabana ay isugu jirsadaan tusaale ahaan shubka waxa qaadaya wish markii uu badda dhex dhigo waxa haagaya quusayaal badda ku jira kuna qalabeysan qalab casri ah qalabkaas oo u sahlaya inay si toos ah u wada hadlaan teamka qolka controlka jooga qol control ka hagaya iyo operatorska wishka maamulaya isla markaasna ayagoo kaalmeysanaya teamka surveyorska ah bay shubka sameeyo loogu talagalay dhigayaan intii la rabana ay isu jirsinayaan alxamdulillah Allah baa mahad leh shaqadan shubdhigida waa noo bilaabatay waxaana rajaynaynaa inay si guul ah noogu dhamaato idanka Ilaahay. Assalaamu calaykum.